Waxaan wada ognahay in wadayaasha tagaasida inta ay ku guda jiraan shaqadooda ay la kulmaan shakhsiyaad kala duwan sida dhakhtar, qof edeb daran iyo qof akhlaaq leh. Waxay qaabilaan dad aad u fara badan oo kala duwan, waxayna kala kulmaan dhacdooyin xunxun iyo kuwo wanaagsan. Sidaas darteed waxaa adag inaad heshid wax iyaga ka yaabiya, maxaa yeelay waxay la soo kulmeen dhacdooyin kala duwan. Marka way adag tahay inaad hesho wax ka yaabiya tagsiilayaasha, waayo way la soo qabsadeen tijaabooyinka nolosha. Sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah oo u dhashay Mareykanka laguna magacaabo Ethan. Balse intaan u gudagelin faahfaahinta sheekadan, haddii aadan ka mid ahayn asxaabta nagu xiran, nagu soo biir, gambaleelka furo. Sidoo kale haddii uu idin cajab geliyo muuqaalkan, like saara si ay dhiirigelin noogu noqoto. Mahadsanidin. Ethan waa mid ka mid ah darawallada tagaasida ka xamaasha magaalada New York. Waxa uu la kulmay dhacdo saameyn leh oo aad u taabatay qulubta kumanaan ruux, waxaana uu ku soo daabacay safxadiisa khaaska ah ee Facebook maadaama ay qudhiisa si aad ah u saameysay. Ethan waxa uu sheegay in uu dalab uga yimid qof, kadibna uu aaday goobtii uu ku sugnaa. Waxa uu sheegay in markii uu tagay goobtii lagu balamiyey ay indhihiisu qabteen guri aad u qurxoon, hortiisana ay ku yaalaan jardiinooyin cagaaran. Waxa uu u qaatay in guriga ay degan yihiin qoys leh carruur, halkaasna ay ku ciyaaraan. Balse wuxuu maladiisii ka laabtay markii uu waayay qof ka soo baxa guriga. Intaas kadib waxa uu ka soo degay gaarigii uu saarnaa, waxaana uu u dhaqaaqay dhanka albaabka guriga, waana uu garaacay. Waxa uu gudaha ka maqlay cod u soo dhowaanaya albaabka. Waxaa ka furtay oo ay indhihiisu qabteen haweeney da' ah, una muuqatay mid gashay 80-meeyada. Salaan iyo marxabeyn kadib, haweeneydii waayeelka ahayd ayaa Ethan ka dalbatay in uu saacideeyo lana soo bixiyo boorsooyinkeeda. Ethan gudaha ayuu u sii galay, wuxuuna u soo qabtay boorsooyinkeedii, balse waxaa ka yaabiyey in indhihiisa ay qabteen qolal maran iyo kartooman faaruq ah. Sidoo kale wuxuu arkay sanaadiiq furan oo mid ka mid ah uu ka soo jeeday album ay ka buuxaan sawirro qadiimi ah. Waxa uu u soo qabtay boorso weyn aadna u culays badnayd, isla markaasna ay ka buuxeen dharka haweeneyda waayeelka ah. Waxaana uu qaatay in haweeneyda ay musaafir u tahay meel. Baabuurkii ayay wada fuuleen, waana ay dhaqaaqeen. Markii ay xoogay socdeen ayuu weydiiyey haweeneyda meesha ay doonayso in uu geeyo, waxayna ugu jawaabtay sida tan: ii ogolow in aan magaalada ku soo wareego. Ethan oo la yaaban hadalka haweeneyda waayeelka ah ayaa u sheegay in wadooyinka ay jaam yihiin, sidaas darteedna laga yaabo in ay ka daahdo meesha ay doonaysay. Haweeneydii oo eegmo ay calooliyow iyo murugo ka muuqato ku soo eegtay ayaa ku tiri sida tan: miyay i walaacinaysaa in aan ka daaho guriga lagu xanaaneeyo waayeelada? Fadlan ii ogolow in aan aragtideydii ugu dambeysay magaalada ku soo wareego. Waan ku siin doonaa intaad u baahato lacag. Ethan aad ayay u saameeyeen hadallada haweeneyda waayeelka ah, waana uu ka xumaaday xaaladda ay ku sugan tahay. Intaas kadib waxa uu bilaabay in uu la sheekaysto. Waxay u sheegtay in magaceedu yahay Becca. Waxay u sheegtay in muddo dheer xaaladdeeda caafimaad ay aad u liidatay. Waxay u sii raacisay inaysan jeclaysan in maalmaha ugu dambeeya nolosheeda ay ku qaadato keligeed. Waxay u sheegtay inaysan wax awlaad ah dhalin, sidaas darteedna ay u go'aansatay in ay aado xarunta xanaanada waayeelada, halkaasna ku noolaato ilaa ajasha ay uga timaado. Waxay u sheegtay in ay ka cabsatay inay dhimato iyadoo keligeed ah, cidna aysan ka warqabin. Sidoo kale waxay u sii daba dhigtay inay guursatay 45 sano ka hor. 40 sano ay nolol farxad ah la qaadatay saygeeda ka hor inta uusan ka dhiman 5 sano ka hor. Becca waxay Ethan u sheegtay in markii uu ka dhintay saygeeda ay nolosha keli ku noqotay, si aad ahna u dhibtootay. Intii ay wadooyinka New York ku wareegayeen, waxay tustay Ethan dhismo ku yiil wadada geeskeeda. Waxayna u sheegtay in halkaas ay xisaabiye ahaan uga shaqayn jirtay sanado badan. Sidoo kale waxay tustay meel baar ah oo ay isku barteen saygeeda ka geeriyooday. Ugu dambeyntii, safarkoodii wareegidda magaalada oo qaatay 3 saacadood waa uu soo dhammaaday. Becca waxay u mahadcelisay Ethan, waxayna siisay ciwaanka xarunta xanaanada waayeelada. Halkaas ayayna u jihaysteen. Waxa uu indhaheeda ka arkayay murugo iyo niyad jab xoogan. Waxay u ekayd mid sagootinaysa caalamka, una sii socota halkii ay mowdka ku sugi lahayd. Waxay soo gaareen xaruntii, gaariga ayay ka degtay, wayna u mahadcelisay. Waxay u soo taagtay lacag aad u fara badan, laakiin Ethan waa uu ka diiday in uu ka qaato. Sidaas ayayna Becca ku gashay xarunta xanaanada waayeelada. Ethan si aad ah ayay u saameysay xaaladda haweeneyda waayeelka ah, waxaana uu ku soo daawacay koontadiisa khaaska ah ee Facebook. Dadkii ku xirnaa ayaa si aad ah ula falgalay, waxayna uga mahadceliyeen mowqifkiisa wanaagsan. Saaxiibadeeyow, waxaan soo gaarnay gabagabada muuqaalka.
haddii uu idin cajab geliyey like saar sidoo kale kommentigiina waa noo dhiirigelin mahadsanidin